guur iyo geedi nololeed qaybta gabadha dunku xidhasho ilaa xilasho gabadhu hawsha nolosha laga hayo waxa ay lahayd qiyaastii 75%. hilal dhowr ah oo culculus ayay huwan jirtay iyada oo inanka kaga waajibaad badnayd nolosha. sidaas darteed waxaa loo baahnaa in tarbiyadeeda culayska la saaro. hooyadu waxa ay u xilsaarnayd barbaarinta ubadka iyo guud ahaan maamulka arrimaha qoyska. howlaha waxa ay gaar u lahayd inta ay hibada u leedahay sida aqal iyo agab samaynta, raridda, furidda, dhisidda, lulidda, qalidda, quudinta iyo arrimo kale oo iyada u fudud ama ay ku habboon tahay qabashadooda. hawsha ugu weyn ee ay qaban jirtay waxa ay ahayd barbaarinta iyo waxbaridda gabadha. arrintani culayska ay lahayd iyo toogaynteedu waxa ay ahayd xilka ugu culus ee nolosha. maxaa yeelay barbaarinta gabadhu waxa ay u dhigmaysay badbaadinta nolosha. ninku waxa uu lahaa maamulka arrimaha guud sida sahanka, ooda, waraabka, difaaca iyo guud ahaan hogaaminta. wakhti aan ka fogayn dhalashadii wiilka ayay dhalatay. waxaa dhaqan ahaa in gabadhu marka ay uurka hooyada soo dhaafto ay sacabsan jirtay hooyo miyir qab iyo miisaan leh. waxaa ballaysimi jirtay hooyo hungurisan oo gabadhu xagga hunguriga ka hidaraacdo. gogol duur iyo dureemo ka hoosayso ayaa dhinaca bidixda loo jiifin jiray. labada bowdo ayaa xadhig la isugu xidhi jiray si tarbiyadeeda looga bilaabo in ay cawradeeda ilaaliso. waxaa looga jeeday in ay dhiidhiibsiga iyo lugaha isku duwiddooda ku dhalato. tallaabada xigtay waxa ay ahayd marka ay dhalato judhaba laguma habi jirin caano. waxaa looga jeeday in ay yeelato sabir iyo sugid, waxaana lagala carariyey hunguri'iin iyo dhaliil bar madow ah ku noqda qoyska ay ka dhalatay. marka xuduntu u qalasho ayaa la canqarin jiray. canqarin waxaa looga jeeday in ay sabirka iyo xishoodka ku dhalato. magaceeda waxaa laga soo diiri jiray xilligii ay dhalatay iyo xaaladdii jirtay. waxaa la bari jiray afka hooyo iyo ereyada suuban. hadaaqa ayaa lagu ilaalin jiray oo carrabka ayaa loo liilin jiray si aanay weynaanta carrab jalaqo u yeelan. waxaa la odhan jiray waxa aad tidhaahdaa shimbir baa ku dhubaa ka dhabaa tidhi oo subag sumal oo kulul oo kadan oo kidi hoostiyaal ayay lasii ku dhubaa ka dhabaa tidhi oo shimbir baas kululaa kadanaa sidee bay subag sumal oo kulul oo kadan oo kidi hoostiyaal ula sii ku dhubaa ka dhabaa tidhi. intaas oo kedis iyo boobsiis ah ayaa dheh la odhan jiray. waxaa kale oo la odhan jiray waxa aad tidhaahdaa waxba aniga hay dhudhun hore dhudhun dambe dhul ku ganafsane orod oo qofkaad dhudhun hore dhudhun dambe u dhul ku ganafsanayso u dhudhun hore dhudhun dambe u dhul ganafso. halahaas iyo halo kale ayaa carrabka loogu liilin jiray si aan eerabkeedu marka ay hadlayso dalab iyo turxaan u yeelan. waxaa loogu halqaban jiray ereyo nolosha salka ku haya ama dhaqanka iyo dhaqaalaha ku qotoma. 3 jirka ayaa lagu howlgelin jiray. halkaas ayay hayaanka nolosha kala jaanqaadi jirtay. waxaa la odhan jiray orod oo xaabo soo gur iyada oo marka sidaas lagu leeyahay xaabo guriga ka buuxdo. waxaa looga jeeday in yaraanta tacabka lagu baro oo hawsha lagu qaayibsiiyo. marka ay xaabadda keento ayaa lagu odhan jiray dabka soo shid. waxaa la bari jiray sida dabka loo shido iyo hanaanka loo dhaqaaleeyo xaabadda. waxaa lagu tababari jiray in ay xaabadda si nidaamsan oo qori ah u saarto si loo baro wax tashiilka. waxaa la odhan jiray waxaas keen iyo waxaas qabo oo looga jeeday in la baro waxqabadka iyo kartida. waxaa la odhan jiray ardayga xaadh si loo baro nadaafadda. 4 jirka iyo 5 jirka ayaa maqasha loo diri jiray waxaana la bari jiray howldhabeennimada iyo xoolaadinta. waxaa la bari jiray maqasha iyo magaca mid walba hooyadii dhashay. ilmaha yar ayay xambaari jirtay oo u heesi jirtay. habeenkii idaha marka la lisayo ayay macasha qabqaban jirtay. waxa ay kala baran jirtay midabada iyo magacyada. waxaa caado ahayd in aanay waxaan hoo mooyaane waxaas isiiya baranin. waxaa gardaadin jiray aamuska iyo is-ilaalinta. 6 jirka ayay adhiga raaci jirtay iyada oo muddada hore lagu weheliyo si ay hawsha marka dambe ugu xasisho. muddo ayay hawshaas dibadda ku foognaan jirtay si ay mas-uuliyaddan culus yaraantaba uga jawaab bixiso. qabaanka guriga ayaa la bari jiray. 7 jirka waxa ay ahaan jirtay gabadh foodley ah waxaanay ku sii tababaran jirtay hanashada raacista adhiga. waxaa la bari jiray feejignaanta sida cadowga adhiga looga ilaaliyo iyo in ay caado ka dhigato in ay si joogto ah codkeeda adhiga u maqashiiso si uu ugu xasilo ama u weheshado. waxa ay baran jirtay neef walba magaciisa. waxaa caado looga dhigi jiray in ay adhiga tiro ku soo hoyso. 10 jirka ilaa 12 jirka waxa ay baran jirtay lisidda iyo lulidda. adhiga ayay lisi jirtay, caanahana way luli jirtay. halkaas waxa ay uga gudbi jirtay gulidda maadha, diirista maydhaxda iyo soohidda xadhiga. waxa ay shaqadeedu noqon jirtay dhigbixin, maadguris, farshaxanimada samaynta hararka iyo inta baarka leh ee maydhax lagu bilo. lama ogolayn in iyada oo faramadhan ay guriga soo gasho. 14 jirka waxa ay ka qaybgeli jirtay aroorka.
waxaa la bari jiray raridda iyo dhisidda dhaanka, aroorka iyo guud ahaan ka qaybgalka maamulka qoyska iyo howlaha bulshada. 15 jirka timaha ayaa loo dabi jiray. Waxa ay dhaqi jirtay oo dhisi jirtay guriga ay ka dhalatay. Iyada oo taas dhinac ka haysa ayay ku dhaqaaqi jirtay abaabulka guriga. Waxa ay samayn jirtay saableyda iyo sarabada agabta iyo weelka. Awrka ayay rari jirtay oo furi jirtay, aqalka ayay dhisi jirtay. Iyada oo 3 qayd Abu Sarmaan ah, boqor iyo dhacle, tusbax jeeni qaar ah iyo subeeciyad xidaysan ku jooqan ayay aroorka ceelka tagi jirtay. Arrinta ugu culus ee barbaarinta inantu waxa ay ahayd habeenkii marka ay seexato ayay hooyadeed 2 ilaa 3 jeer u yeedhi jirtay oo dhan jirtay heblaay. Haddii ay judhaba ku tilaab celin weydo hee hooyo oo sare fadhiisan weydo ama ay hurdada sii macaansato, kabtu waa ay saarnaan jirtay. Habeen iyada oo aan cidiba dhabanka dhulka ka qaadin oo ay inantuna huruddo ayay hooyadu dhuxul madow marin jirtay marada ay inantu xidhan tahay. Dabadeedna inta aan waagu si fiican u bariyin ayay hooyadu inanta kicin jirtay. Caado ayay ahayd in ay inantu marka ay subaxdii soo toosto hawsha ka bilowdo in ay hubiso in korkeeda iyo hugeeduba fayu yihiin. Marka ay toosto waxaa waajib ahaa 3 shay: in ay kor iyo kal isbaadho oo marada ay sidato dhan walba u dhugato, in ay timaheeda aloosan saxar iyo sigaba ka eegto, iyo in ay caday kuusha ugu xidhan la soo baxdo. Haddii ay qorraxda sugto ama inta ay toosto ay iska dhaqaaqdo oo maradii ay hooyadeed xalay dhuxusha marisay indhaha qac ku siin weydo, nabarro culculus ayaa ku dhici jiray. Waayo magaca ayaa la wada lahaa oo ay ahayd in la wada ilaaliyo, naanays iyo dhegxumana lagala cararo. Bulshadu hanka ayay xeer ka dhigatay, qof kastaana waxa uu ku qiimaysnaa sida uu ceeb iyo quudhsi uga nabadgalo. Waxaa lagu tababari jiray hungurisamida, hayalsamida, xishoodka, miyirka, hubsiinada, hufnaanta, hanaanka wax loo qabto, nadaafadda, falsamida, feejignaanta, dulqaadka, hadal koobnaanta, jajabnaanta iyo in ay jaariban haween noqoto si ay ugu guulaysato hanashada xilka iyo waajibaadka berri sugaya. Yaraantaba dhexda ayay hooyadeed xadhig ugu goyn jirtay, iyada oo uga gol leh in aanay inantu cirkeeda bogan. Markan waxa ay hooyadu xasuusan tahay halayska yidhaahda dumarkana cirkeed bogatiyo, casarkii seexatow daran. In ay caanaha ka dheragto oo caloosha buuxiso looma ogolayn. Waxaa looga jeeday inay 2 qaar noqoto. Dhexdu madag, afkuna dhuxul, inta kale dhimbilo roob. Waxaa looga jeeday hilibkeedu ha jeeraado oo yaanay jawaan isku siidays ah noqon, ama ha yeelato dhisme qurux badan oo lagu dhaygago. Iyada oo jabsan, jaraysan, hawl adduun aan halka moogayn, dhowr jaamacadood ka soo baxday, leegleegsanaysa oo nolosheeda qaybtii hore iyo dhisidda guriga ay ku dhalatay ku guulaysatay, ka dhaxdinta ee sugayana u layliyan oo isku kalsooni 100% ah qabta ayaa geediga labaad iman jiray. Dharagu macno ma lahayn, cuntaduna wax lagu faano ma ahayn. Si taas la mid ah, cuntadu wax shaqo laga dhigto ma ahayn. Waxaa mudnaa anshaxa, asluubta, aamuska, miyirka, hubsiinada, xishoodka, hanweynida, dhowrsoonaanta iyo xeerinta dhegta. Waxaa intaas oo sanno gabadha loo carbinayay oo loo laylinayay xilka culus ee berito ee ubadka, ninka, tolkiisa iyo waajibaadka guud ee nolosha ha gudato oo yaan lagu dhaliilin ama lagu nicin. Waxaa looga jeeday yaan la xaman marka la guursado ee ay guri kale oo loo fiirsanayo tagto. Waxaa looga gol lahaa yaanay dhegxumo soo hoynin marka ay dhexdin noqoto. Waxaa loo jeeday in magaca qoyskii ay ka dhalatay bulshada dhexdeeda ku sii fido oo ku sii faafo, mar haddii waxaa la kala riixanayaa yahay hanka iyo magaca qoyska. Haddii gabadhu wax dhaliilo ah la timaado, cidda dhaliilahaas wax ku waayeysaa waa qoyska ay ka dhalatay, gaar ahaan hooyada. Waayo waxaa caddaanaysa in aanay hooyadu gudan waajibaadkii hooyanimo. Sidoo kale waxa ay dhegxumadaasi saamaynaysaa gabdhaha iyada ka yaryar oo gayaan seegaya ama qiimaha ay soo hoynayaan magac iyo maalba hoos u dhacayo. Sidaas darteed waxaa jirta odhaah arrintaas ku saabsan oo odhanaysa: hoosada magaalada, gabadh hooyo door ah leh lama huro hadh galabeed. Gabadhu marka ay turxaan dhammaysato ee la hubiyo in ay si raganimo leh nolosha dhaxdinta kaalinta ay ku leedahay uga jawaabayso ayay guur u feedhan jirtay. Iyada oo dhan la dayaba ka dheeli tiran, dhaliil iyo barmadow ka madhan, oo ujeeddadii qoyska iyo ummadduba ka lahayd buuxinaysa, iyada oo gaari ah, marwo ah, dhabeel ah, oo qaryad ah, iyada oo jaariban ah, wax goosanaysa, qoyska ay ka dhalatay iyo bulshadana wax u goynaysa, ayaa la isku sheegi jiray oo hadalhaynteedu badan jirtay. Waxaa la odhan jiray inanta aabbaheed waa kuma. Waa maxay kaalinta uu nolosha ku leeyahay iyo magaca uu bulshada dhexdeeda ku haystaa? Waa maxay guulaha uu nolosha ka soo hooyey? Hooyada, ayayada, ilaa awowga ayaa la socon jiray. Sida maanta degdeg ma jirin. Warkeeda waa la hayaa. Iyaduna beesha barbaarta joogta iyo barbaar weliba derajada uu sito waa ay ka warhaysaa.
gaadashaa jirtay, calafna waa halkiisa. maalin maalmaha ka mid ah, goor subax ah ama barqo ah oo xoolihii foofeen ayaa guurtii reerka soo abbaari jirtay. waxa ay sidan jireen astaamo ardaadhigu leeyahay. waxa ay wadan jireen fardo dhowr midab ka kooban oo heensaysan. hooshaarka iyo higilka ayaa laga garan jiray ujeeddada. geed ku yaalla reerka agtiisa ayay ruga dhigan jireen. sabo wanaagsan ayaa la waaheeli jiray. dadab bilan oo dalaysan oo hararo, isku joog, indhadaalis iyo gogol wada hoobaani ah ka kooban ayaa la taxi jiray. waa la isku arki jiray, waa la isku xiniyo taaban jiray. 100 qaalmood oo may cas ah ama qori cas ah iyo baarqab dhinac socda ayaa la keeni jiray. 2 qabiil ayaa ku kulmi jiray. gabaati hordhac ah iyo guurti ardaadhig ah oo aloosan, hub qurux badanna sita oo inanka iyo saf ilmaadeeradiis ahi hareero socdaan ayaa ardaa loo goyn jiray. habeenno, maalmo iyo marti mudan ah oo maamuus lagu sooro ayay noqon jireen. maalin ama maalmo sooryo iyo maamuus ah ayaa wada hadalka ka horrayn jiray. howlahaas kadib ayaa hadalku furmi jiray. salaan ayaa dhici jirtay, hadal sarbeeb ah oo ku saabsan ujeeddaduna waa xigi jiray. hadalku abbaar iyo mahmaaho hordhac ah ayuu ku furmi jiray. madadaalo, meexaane iyo dhoolatus ayaa in muddo ah socon jiray. gabadha iyo wiilka ayaa la astayn jiray. gabadha ayaa ka hadalkeeda lagu raagi jiray. hooyada iyo haween la socda ayaa meel golaha ka durugsan iman jiray. hooyadu waxa ay dhegta u raaricin jirtay sida inanta astaynteeda loo taxayo. marinkii iyo hilinkii uu hadalku lahaa ayaa la qaadsiin jiray. gacanqaad muddaysan ayaa lagu kala carraabi jiray. hadallo dhaqanka guurka salka ku haya iyo erayo murti ah oo maskaxda daaliya ayaa la isdhaafsan jiray. wakhti muddaysan kadib ayaa yarad nin magtiis ah oo sooc ah guriga la keeni jiray, guddoonka iyo meherkuna waa xigi jiray. intaas kadib ayaa gelbiska iyo arooska loo gudbi jiray, iyada oo ay inantuna ku jooqan tahay hugii iyo qalabkii ay habluhu gaarka u lahaayeen. sar daruuran oo maas ah, maro abusarmaantii ah. dhaclebaarka loo seesay. boqor wada siyaakhaysan, sindiyaal jiljila dhiibsan. tusbax dhowr 9 laab ah iyo qool sunaar dheehan, subeeciyad xidiyo laaf leh. adigoo 8daas hal iyo timaha oo soohan ku darsaday sifaa guudka, garashiyo sariig sheegtay, sinta bidix ka laafiyooday, ma qofkaasi taajooga. gabadha ama guudleyda gelbiska ahi iyada oo shaambinaysa oo inta aynu kor ku soo xusnay ku jooqan oo tallaabada miyir iyo miisaan ku halqaadaysa, iyada oo indhaha cawsha leh oo ay indhuhu hore u rogan yihiin, iyada oo xishoodku hadheeyey oo isku kalsoonida, hufnaanta, heemaalka, hubsiina dhaqaaqa, higilka hareero socda, haloosiga gadaasheeda ka baxaya, alalaaska iyo olologtu gelbinayso, iyada oo amarka iyo hanka saaran ee ka ifayaa dadka shaamareer ku ridayo, iyada oo faras qaaji ah oo shaal iyo shalmad dhabaq guduud ahi sudhan yihiin hor socdo, ama haddii ay goosato wegan fardo heensaysan oo rogaalka raabaqaadayaa hadba jiho kaga imaanayo, oo 3 saf oo midi ka dambeeyo, 2na hareer socotaa u heesayso, u halqabanayso oo u abtirinayso, iyada oo mashxaradda, muusoodka iyo meexaanaha dhacayaa maayad goobjoogaha maankiisa lulaysa tahay, oo wiilo xambaarsan tahay wiil saadaal ah, dhiil caano ahna gacanta midig ku hayso, oo ujeeddada ka dambaysaa u dhacayso, wiil iyo caano noqo. labada shay ee bulshadu ugu jeceshahay ayaa aqal labadaryaale ah oo sheed dheer oo googoosyo, isku joogyo, waxyaale iyo indhadaalisba lagu xidhay, kabdo may dhexgalool ahina labada dheeg ka saaran tahay, ila xidhka loo waabi jiray. inta aanay guriga gelin ayay qabo biyo lagu shubay cagaha gelin jirtay, iyada oo la rajaynayo in ay noqoto oori degel qabow. dabadeedna raarta ayay ka soo jeedsan jirtay, iyada oo gabdho geelooyin ahi hareero fadhiyaan. waa goor casar ah, aqalka agaarkiisa oo dhammi waa rushaysan tahay. 4 jiho ee aqalka ayaa cayaar laga jebin jiray. alalaaska iyo dananka hablaha ayaa dareenka goobjooga shidi jiray. aftahamada iyo dhoolatuska laba dhacaya iyo raabaraabaha soo hormanaya ayaa ashqaraar dhalin jiray. goolal iyo xoolo gaamuray ayaa la sadqayn jiray. awaashaasna duco ayaa lagu gunaanadi jiray. kadib goobta waa laga guuri jiray si ay qoysku ujeeddadii iyo waajibaadkii ay isu guursadeen u fuliyaan. waxaa caado ahaan la jeclaa in ilmaha curadka ahi gabadh noqdo si ay u xambaarto wiilka iyada ku xiga. ubadka ay hadhow dhashaana waxa ay noqon jireen 2 tolle walaaleeya 2 qabiil. qoysku beelo iyo bulsho kala durugsan ayuu isku soo dhoweyn jiray oo walaalayn jiray. ubad ayaa alle siin jiray, dabadeedna ubadkaas ayay dhaqankooda nolosha waafajin jireen. ciidan ay waajibaadka nolosha u kaashadaan ayay ka dhigan jireen oo waxa ay mahadin jireen waxtarka ay hadhow yeeshaan. tarankoodaasi dhulka ayuu camiri jiray. haddii alle waafajiyo waxa ay gudi jireen abaalkii waalidka, kii ummadda, kii nolosha iyo kii ilaahay intaba. heerarka nolosha ayay marba mid u tallaabi jireen. waddo jeexan iyo tub sugan oo waafaqsan dhaqanka iyo dhaqaalaha ummadda ayay nolosha u adeegsan jireen.
waxa ay noqon jireen ubad jabsan oo jaraysan oo hidaraaca beesha ku sugan. Gabadhaas iyo wiilkaas lamaanaha ah ee nolosha isku kaashaday ayay guud ahaan noloshu ahayd. Ubadka nolosha ku soo biira, noloshu waa ay mahadin jirtay, iyaguna nolosha waa ay mahadin jireen. Waxay ahaayeen laba isku nool oo mid weliba ka kale xaqiisa guddo. Nolosha oo dhammi waxay ahayd lamaane ujeeddadooda iyo aragtidoodu midaysan tahay oo aan mashkiladii dhex iman iyo laba qof midba midka kale u hanweyn yahay. Ninku waxa uu ku fognaan jiray qabiidkirka qoyska soo kordhay. Ooriduna waxa ay hanan jirtay dhinacii nolosha ee isaga ku bannaanaa. Laba isku dhiganta oo isbuuxisa ayay noqon jireen. Ubad ay nolosha u kaashadaan wiil iyo gabadh ayaa Ilaahay siin jiray. Waxaa dhismi jiray dhaqanka iyo dhaqaalaha. Hunguri iyo gogolamaan la isuma guursan jirin, laakiin ujeeddooyin nololeed oo intaas ka xeel dheer ayaa qabsoomi jiray. Ujeeddada ugu weyni waxa ay ahayd in qoysku helo ciidan uu nolosha u kaashado, dad iyo duunyo, iyo in ubadka iyo adduunka ay soo kordhiyaan noloshu adeegsato oo la manaafacadsado. Qofka iyo bulshada labadaba xeerka dhex yaalay waxa uu ahaa wadajir, isbuuxin iyo barbarkay ka baxdaa waa bakaylo qaleen. Sannado dheer kadib marka lamaanaha waxay dhaleen iyo waxa ay dhaqeen is-celiyaan ee isku filnaadaan, ayay iyadu noqon jirtay raas weyn, dhinaceeda dad iyo duunyaba camiran tahay, hadba guri cusub oo bulshadu leedahay dhista, gacalku ku soo hirto oo gurigeeda haraadka iyo gaajada lagu reebo. Waxa ay noqon jirtay marwo hareeraheeda la buuxiyo oo hayn iyo hooba leh. Maalintaas ayuu ninku u kala tegi jiray ubadka hana qaaday iyo hantida tarantay. Waxa uu u gudbi jiray geedka aqoonta iyo golaha guurtida taliska guud ee beesha laga hogaamiyo. Waxa uu ka mid noqon jiray xeerbeegtida u qaybsan samatalinta, hawraarta, hawaale waranka, hoga tusaalaha iyo kala hagidda dadka. Ugu dambayna, isaga oo magee leh, maamuus leh, oo mudnaan huwan, isaga oo raganimadiisa caan ku ah, isaga oo marka uu maqan yahay la tebo, marka uu tegayana la celiyo, isaga oo inta xulka ah ka mid ah, aqoontiisa, taladiisa iyo tusmadiisana la mahadiyey, isaga oo aan isweydiinayn waxa cimrigiisu ku baxay, isaga oo isku daawanaya muraayad weyn oo tusaysa guulihii uu nolosha ka soo hooyey iyo xusuusta uu dadka uga tegay, oo tusbax, weyso, iyo masalaha gacanta ku haya ayuu adduunyada ka xiroon jiray. Camalkiisa iyo cibaadadiisuna sahay u noqon jireen. Murti ayuu ka tegi jiray. Mahmaaho ayuu ka tegi jiray. Halhaysyo ayuu ka tegi jiray. Adduun, ubad iyo aqoon nolosha bila oo xoojiya ayuu ka tegi jiray. Baalcad oo nadiif ah iyo waddo toobiya ah oo uu jeexay, ku dayasho leh oo la tixraaco ayuu ka tegi jiray. Inantu qoyska ay u dhaxday taran iyo tayo ayay ku kordhin jirtay. Marka dambana waxa ay la bixi jirtay taash weyn. Beesha ayay magac iyo maamuus ku yeelan jirtay. Marka u dambaysa talada qoyska ayay wax ku yeelan jirtay. Iyada oo aan nolosha ciil ka qabin oo waajibaadkii nolosha iyo geedigii dheeraa dhinaceeda hanatay oo geed madaleed markhaati dhigatay, ayay xaggii loo badnaa aakhiro qaban jirtay. Bulshadu ma goblami jirin ee geesiyaal sii ambaqaada geediga ayaa dhalan jiray. Bulshadu gun iyo baar labadaas qof iyo lamaanahaas aynu marba mid ka sheekaynay ayay ahayd. Qofkii dhashaaba, wiil iyo gabadh, waxa uu ahaa kii shalay la aasay oo soo noqday. La soco qaybaha dambe nagu soo biir, waxaad noo tahay qof muhiim ah.